imise shay oo aad samayn lahayd oo ay ka reebtay ka cabsashada dadka? Imise horumar ayaa kuu suurtageli lahayd inaad gaarto balse aad ku dhiiran weysay ka cabsashada dadka awgeed? Imise shay ayaad jeclaan lahayd inaad u faa'iideyso dadka balse ay ka reebtay ka cabsashada dadka? Ma doonaysaa inaad iska baabi'iso ka cabsashada dadka? Haddaba ina keen. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو وقاسم محمد داعad waxaan ahay wehelkaaga guusha ku soo dhawow barnaamijka horumari naftaada si aad nooga mid noqoto ku soo biir janalka hagaha nafta oo ah janal soo gudbiya xogaha guusha iyo horumarinta nafta. taaba badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. ka cabsashada dadka waa xaqiiq inay jiraan dhowr waxyaabood oo ku qabsoomi lahaa balse ay ka reebtay ka cabsashada dadka awgeed adigoo ka cabsanaya hadaladooda iyo falcelintooda. marka hore aan isla fahanno waa maxay cabsida. cabsidu waa dareen annaga aan ku abuurano gudaheena kaasoo sababa inaan ku dhiiran weyno sameynta waxyaabaha qaarkood taas oo ugu dambeyn naga dhigta inaan noqonno dad u xabisan cabsida. balse nasiib wanaag waa wax laga adkaan karo oo kaliya kaaga baahan inaad dareento inaad tahay qof xor ah oo sameyn kara wax walba uu u arko inay muhiim u yihiin jiritaankiisa qofnimo, sida inaad abuuran karto fikrado aad ku horumarinayso noloshaada, waxbarashadaada, xirfadahaaga, kuna bilaabayso nolosha adiga kuu muuqata oo aad isleedahay waa nolol aad u qalanto inaad hesho. uma baahnid dadka inay ku qancaan waxyaabaha adigu aad sameynayso. nafsadaada ayaa ah qofka muhiimka ah inay ku qanacdo waxyaabaha aad sameynayso iyo tallaabooyinka aad qaadayso. dadku waa ilaaliyaal isha ku haya tallaabooyinka aad qaadayso, mana joojinayaan inay ka falceliyaan wax walba aad la timaado, balse adigu ha isku mashquulin midaas. adiga uma noolid dadka dartooda. adiga waxaad dhalatay adigoo xor ah, kaliya waxaa ku adoonsaday rabbigaaga oo kugu leh ka cabsashada. qofka kale inaad ka cabsataa waa curyaannimo, waxaana keeni kara inaad ka cabsato dadka waxyaabo badan sida inaadan ku qanacsanayn qaabka aad u samaysan tahay, inaad aaminsan tahay dadka inay kaa fiican yihiin adiguna aad ugu liidato, inaadan karti u lahayn sameynta waxyaabaha qaar. soo uma jeedid intaan oo dhan waa waxba kama jiraan oo uu qofkeena isaga ku abuurto gudihiisa iskana dhaadhiciyay. balse waxaan kuu wadaa 6 tallaabo oo aad isaga baabi'in karto kana guuleysan karto dareenka ka cabsashada dadka weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. balse ii ballanqaad inaad ku dabaqi doontid noloshaada si maalinle ah. aniguna waxaan kuu ballanqaadayaa inaad si degdeg ah ku dareemi doontid qiimahaaga qofnimo kana xoroobi doontid ka cabsashada dadka. tallaabada koowaad, ku qanac nafsadaada. aqbal oo ku qanac nafsadaada. si walba oo aad u samaysan tahay waa qurux adiga kuu gaar ah oo aad uga duwan tahay dadka kale. dhageyso Allah subxaanahu wa ta'aala hadalkiisa oo inoogu sheegayo quraanka kariimka ah, laqad khalaqnal insaana fi ahsani taqwiim, oo macnaheedu yahay Allah wuxuu nagu fahansiinayaa sida uu inoo abuuray. wuxuuna leeyahay waxaa xaqiiqo ah insaanka inaan ka abuurnay toosnaan midda ugu wanaagsan. uma baahnid adiga inaad u ekaato qof kale. adiga alla weyne wuxuu kugu talagalay sidaan quruxda badan oo aad u samaysan tahay. hadda aqbal nafsadaada inay u qalanto inay higsato meelo sarsare. aqbal nafsadaada inay xaq u leedahay in la dhageysto. aqbal nafsadaada inay tahay mid mudan in fikir ay soo jeediso. aqbal nafsadaada inay xornimo ku dhalatay oo aysan jirin cid ay ka cabsanayso alla weyne mooye. ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa aayad kale kamid ah quraankiisa kariimka ah, wa taqsha an-naasa wallahu ahqqu an taqshaa, oo macnaheedu yahay dadka ayaad ka cabsanaysaan, alla ayaana u xaq leh in laga cabsado. iska daa cabsida aad ka cabsanayso dadka, ka xuray nafsadaada cabsidaasi, una noolow
inaad horumariso noloshaada adigoo aadan cidna ka baqin. Tallaabada labaad, ha la barbardhigin nafsadaada qof kale. Weligaa ka fogow inaad la tartanto qof kale ama aad isla barbardhigto. Ogow marka aad nafsadaada la barbardhigayso qof kale, waxaad hoos u dhigaysaa jiritaankaaga qofnimo. Maya, sidaas kuma habboona. Uma baahnid adigu inaad isla barbardhigto qof kale, waayo adigu waxaad u abuuran tahay oo lagugu talagalay inaad adiga is ahaato oo aadan u ekaan cid kale. Tallaabada saddexaad, ka adkow qofka kugu dhex jira. Waxaa jira qof nagu dhex jira annaga oo mar walba saameyn weyn ku leh tallaabooyinka aan qaadayno iyo go'aanada aan gaarayno. Sidaas ay tahay mar walba wuxuu nagu dhahaa erayo liddi ku ah waxyaabaha aan samaynayno. Tusaale ahaan marka aad doonayso inaad soo bandhigto shay ama aad ka qayb qaadato barnaamij, wuxuu kugu leeyahay dadka inay kula yaabaan miyaad doonaysaa adiga. War waxaan laguguma talagelin. War adigu ma awoodid shaygan inaad qabato. Sidaa darteed adigu qofkaasi ha u rumayn waxyaabaha uu kugu dhahayo. Waa waxyaabo adiga aad abuuranayso gudahaaga. Ka adkow qofkaasi ee waxaad ku tiraahdaa waan awoodi karaa inaan sameeyo. Hadduuba qof kale sameeyay, anigana waan awoodaa inaan sameeyo. Waan ka qayb qaadan karaa wax walba oo aan u baahanahay. Waan horumarin karaa nafsadeyda. Ku dheh erayadaasi. Haddii aad ka adkaato qofka kugu dhex jira, waxaa kuu fududaanaysa inaad ka adkaato qofka kaa soo horjeeda oo cadowgaaga ah. Waxaa jirta waxayna leedahay markii uusan jirin cadow adiga kugu dhex jira, cadowga bannaanka kuma dhaawici karo. taasi waxayna tusaysaa cadowga adiga kugu dhex jira qof kale ma ahan, qof ayaa adiga kaa dhex hadlaya oo ka falcelinaya mar walba tallaabo walba aad qaadayso. Adiga oo aad iska adkaataa ayaa u noqon doona fure inaad ka xorowdo cabsida dadka kuna guulaysato barnaamij walba oo aad u baahan tahay noloshaada, kuna samayso horumarin joogto ah noloshaada iyo waxqabadkaaga. Tallaabada afaraad, dadka ha ka filan mar walba wanaag. Qofna ha ka filanin mar walba wanaag iyo hadallo wanaagsan oo ku dhiirigeliya, waayo dadku waxay isku bedelaan sida sanadkuba uu isku bedelo, waxayna mar walba noqdaan kuwa la jaan qaada xaaladda xilligaasi taagan. Dadkuna waxaa sahlan inay si fudud isku bedelaan kuna dhaawacaan. Dadna waxaa ugu dhaawac xanuun badan midka adiga ku dhow oo aad isku haleynayso. Sidaas ay tahay adiga maskaxdaada ka dhaadhici dadka mar walba inaan laga helin waxyaabo adiga ku farxad geliya kuna dhiirigeliya. Mar walba ka filo, labaduba ka filo, inay ku dhaawacaan ka filo, inay ku wanaajiyaan ka filo. Waayo waxaaba iska yar inta dadka dhiirigelisa, waxaaba iska yar inta dadka niyadda u dhista, waxaaba iska yar inta dhaawaca dadka ka ilaalisa. Waxaa jiraan dad fara badan oo diyaar u ah inay ku dhaawacaan. Waxaa jiraan dad yar oo diyaar u ah inay ku daaweeyaan qalbigaagana ay dhisaan. Sidaa darteed dadka dhan ha ka filan inay ku wanaajiyaan, balse adigu ku talagal mar walba iyagu inaad wanaajiso si aysan saameyn ugu yeelanin adiga wanaagaaga. Tallaabada shanaad, ha rumaysan dadka ku niyad jabiya hadaladooda. Aad ayay muhiim u tahay inaad iska dhagatirto hadallada niyad jabka ah oo ay kugu dhahayaan dadka qaar oo liidaya awooddaada iyo kartidaada. Ha u ogolaanin dadkaas inay dhacdo sida ay adiga ku moodayaan, inaad tahay qof daciif ah oo aan hor u socon karin, aan isbedel samayn karin, oo aan horumarin karin nafsadiisa. Dadkaas hadaladooda ha u rumayn, waayo dadka ma joojinayaan inay wax kaa sheegaan, ma joojinayaan inay mar walba ka falceliyaan tallaabo kasta oo aad qaado. Adiguna ma raaligelin kartid dadka oo dhan. Sidaas awgeed adigu ha isku mashquulin dadka hadaladooda, iska dhagatir. Waa wadada ugu horeysa oo aad aga guulaysan karto dadka, oo ah inaad iska dhagatirto hadaladooda, horena aad uga sii socoto adigoo danahaaga fiirsanaya. Tallaabada lixaad, aamin awooddaada qofnimo. Aaminsanow nafsadaada oo ku dheh naftayda qiimaha badneeday, waxaa tahay qofka kaliya ee ii rumayn kara riyooyinkayga, ina gaarsiin kara halka aan mudanahay oo ah inaan ku noolaado nolol isku filnaansho ah, kalsooni iyo jacayl leh. Ugu dambeyn, waxaan rajeynayaa inuu wax badan kaa caawiyo muuqaalkan, oo aad dareemayso xorriyad iyo inaad tahay qof mudan inuu ka mid noqdo dadka guulaysta ee dunida
dhigtay magac iyo calaamado lagu xasuusto. Hana iloobin cabsida dadka inaysan naga mudnayn, balse alla weyne uu yahay midka inaga mudan inaan uga cabsonno si joogto. Waxaa la soo gaaray waqtigaagii aadna dhiirigelin lahayd. Ku qaba muuqaalka like, kadibna u sheergaray asxaabtaada kuugu jirta Facebook, Imo, Instagram, WhatsApp iyo aalad walba oo aad ku gaarsiin karto taladaada, aragtidaada iyo wax walba aad nala jeceshahay inaad noo soo gudbiso. Inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga adigoo dareemaya farxad iyo xorriyad. Inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socda, iigu noolow kalsooni, jacayl iyo farxad waarta. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.